السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad ka daawanaysid waa Abno Official. fadlan channelka haddii aad ku subta subscribe saar si ku soo gaara muuqaalada xiga. muuqaalkan waxaa kaga hadlaynaa afar sifo ay tahay inaad ogaato ama aad barato ama aad noqotid si aad u noqotid ganacsade guuleysta. inaad noqoto ganacsade guuleysta waxay qaadataa wax ka badan fikradda kaliya ee wanaagsan. waxay kale u baahan tahay inaad yeelato afar sifo. afartan sifo waa muhiim. ganacsatadu waxay diyaar u yihiin inay galaan khataro kala duwan, tijaabiyaan fikrado cusub ay ku bixiyaan wax waliba si ay u rumeeyaan riyooyinkooda. maxayse tahay waxa dadkan ka dhigaya ama dadka kale ka soocaya inay guuleystaan, ama shakhsigan inuu noqdo qof guuleysta, shakhsigan uu noqdo qof guuldareysta. runtii miyay u muuqdaan kuwo aan wax xiriir ka dhaxaynin. waa kuwan afarta astaamood ee muhiimka ah ee aad u baahan tahay si aad u noqoto ganacsade guuleysata. 1. adkaysi iyo joogteyn. waa inaad leedahay kartida lagu adkaysan karo xaaladaha adag iyo dib u soo noqoshada guuldarooyinka. dad badan ayaa aaminsan in si adag loo shaqeeyo ay hubaal horseedi doonto guul. si kastaba ha ahaatee, waa inaad diiradda saartaa hadafkaada iyadoo aan loo eegin caqabadaha aad la kulanto. waxaad u baahan tahay inaad joogseetid si aad u wadato xitaa markii ay u muuqato inaysan jirin wax ikhtiyaar ah oo ku hadhay oo meeshii ugu dambeeyay ama pointigii ugu dambeeyay markaas aad taagan tahay. waxay ku saabsan tahay adkaysi aad ku sii wado xitaa markii aadan dareensanayn ama marka ay shay kugu adkaato. waa inaad muujisaa adkaysi oo aadan marnaba joogsan. lahaanshaha adkaysi iyo joogteyn waxay la macno tahay inaad ku adkaysato dhammaan noocyada caqabadaha iyo inaad yeelato adkaysi si markii ay wax qaldamaan aad si dhaqso ah dib ugu soo kabsato halkii aad ka joojin lahayd oo aad ka joogsan lahayd horumarkaaga. qodobka labaad waa inaad yeelataa ama sifada labaad waa inaad yeelataa horumar. wax badan ayaad ka baran kartaa qaladaadkaada. baro inaad dib ugu kabsato guuldarada. waxaad ku gaari doontaa horumaro si dhaqsi ah. ku adkaysiga iyo go'aan qaadashada ayaa ah furaha guusha, laakiin adkaysigu wuxuu noqon karaa mid aad uga sii muhiimsan tayada. dadku marka ay wax ku fashilmaan waxay inta badan isla markiiba ka quustaan ama eedeeyaan cid kale ama duruufahooda, taas oo aan ahayn habdhaqan wax soo saar leh. dadka qaar ee ku guuldareystay hal dadaal ayaa guuldaro u muuqata ka niyadjaba wixii ay qaban lahaayeen. sababtoo ah maskaxda guuldareysata waxay mar waliba ku fikirtaa sidii mar waliba ee ugu gudbin lahayd nidaamkan guuldareysiga, caadadan guuldareysiga. mar walba waxaa u baahan tahay inaad naftaada horumarisid, aad baratid, wax ka baratid qaladaadkii kaa dhacay. waxay qaataan waqti kadib markii ay guuldareystaan si ay mar kale isugu dayaan. ma jirto waddo kale oo aad ugu laabatid oo dib ugu noqotid. waa inaad naftaada wax bartid. xusuusnow inaad sii wado dejinta yoolalka waxay muhiim u tahay guusha, sababtoo ah waxay ina siinaysaa hab aan ku cabirno horumarkayga, waxayna nagu dhiirigelinaysaa inaad sii wadno marka arrimuhu adkaadaan. sifada saddexaad ee qofka lagu baahan yahay inuu yeesho waa wacyigelin. inaad iswacyigelisid. ganacsade kasta wuxuu u baahan yahay inuu iska warqabo. waa inay yaqaanaan meelaha ay ku wanaagsan yihiin, meelaha ay ku liitaan, waxa ay rabaan iyo waxa ay rabaan inay ka bartaan nolosha, iyo inay si ka duwan u sameeyaan dhammaan dhinacyada ganacsiga. wacyigelinta nafta sidoo kale waa muhiim, sababtoo ah waxay kaa caawinaysaa inaad fahamto shaqooyinka kugu habboon adiga, si aad diirad u saarto mashaariicda kugu habboon danahaaga iyo kartidaada. haddii tusaale ahaan aad haysato waddadii aad ku guuleysan lahayd laakiin aadan awoodin inaad mudnaanta siiso howlahaaga sababtoo ah dhammaantoodu waxay u muuqdaan kuwo isku mid ah. xaalad kastoo imaan karta mar walba waxay u baahan tahay bilaabid. marka laga yaabee inaysan hadda kugu habbooneen, waxaad u baahan tahay wacyigelin xooggan oo aad wacyigeliso naftaada waqti geli oo baro koorsooyin kala duwan iyo xirfado kala duwan, kaas oo kaa saacidaya inaad si tartiib ah aad ugu gudubto marxaladaha adag ee asaasida iyo wadida ganacsiga.
qodobka afraad waa dareemidda iyo wax la qaybsiga dadka kale. dareenka, awoodda fahamka iyo wadaagista dareenka qofka kale waa mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee qof kasta yeelan karo. ganacsiga dhexdiisa, naxariistu waxa ay kuu saamaxdaa inaad fahanto macaamiishaada oo aad abuurto badeecad ay jeclaan doonaan. waxay sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad u naxariisato shaqaalaha, taasoo ka dhigaysa shaqadooda mid aad u dhammaystiran. dhammaan mulkiilayaasha iyo maareeyaasha ganacsigu waa inay yeeshaan dabeecad ah dhegaysiga fikradaha macaamiishooda iyo shaqaalahooda ka hor intaysan gaarin go'aanada muhiimka ah. sidoo kale waa inay naxariis u muujiyaan shaqaalahooda ayna ka caawiyaan howlaha culus shaqada iyo inay ku abaalmariyaan shaqooyinka ay qabteen. waxaan rajaynayaa inaad wax badan aad ka faa'iiday muuqaalkan. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kusoo gaaraan muuqaalada xiga. sidoo kale booqo website-kayga calimuuse.com ama adigoo ka booqanaya linkiga hoose ee description-ka yaala. insha allah soo dhawo.